Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkan YouTube-ka. Ee, Maanta waxaan ka shaqayn doonaa waa hal exercise keliya. Exercise-ka waxaa la dhahaa exercise 3.1. Waxaan creating doonaa virtual cashirkeenii hore waxaan horta markii hore ka shaqaynay. Waxaan creatinay hard disk baan creatinay oo sidaad arkaysa I'll show to you. Waxaan samayn doonaa before intaan ka gelin cashirkii hore aan ka yar laabto. Waxaan creatiyey dad ku laabatan cashirkeena waa taxano weeyaan. Disk management aan tegi marka waxaan last time creatiyey tusaya. Last time waxaan creatiyey disk baan creatiyey value oo ah ma garanaysaa disk 1 disk 2 and disk 3 ayaan creatiyey oo ah ma garanaysaa kuwa halkan noo yaala disk 1 and disk 2 ayaan creatiyey oo ah ma this physical weeyaan. Markaan sameynayna markaan sameynayey waxaan tegey intaa tagtid VM waan tagtid waan ku tusayaa kuwaan creatiyey last time. As you can see halkaa ku qoran tahay diskay ku qoran tahay hard disk 1 hard disk saad arkaysaan disk disk 2 3 4 waxaan ku haysanaa kuwaasaan haysanaa. Kan waa kii hore ee systemka inoo lahaa kaasi laakiin waxaan creatinay 2 3 4 baan creatinay oo kan uu ahaa 5 gigabyte kan labaad ka saddexaadna uu ahaa 5 gigabyte kan afraadna uu ahaa 10 gigabyte waa hard disk ayuu ahaa oo waa physical ah oo halka marka creatiyey. Laakiin maanta waxaan samayn doonaa waxaan create doonaa ku virtual ah. Haddii kuwan kugu bataan oo doonaysa inaad virtual creatisi ayaa markaa la createyaa kan. Kan waxaa la yidhaha creating virtual waa la soo gaabiyey oo virtual hard disk weeyaan ayaa loo soo gaabiyey. Marka hadda waxaan samayn doonaa laba siyaabood baa loo sameeyaa. Halkan baad ku qori kartaa waxaad ku qori kartaa halkan disk management aad ku qori kartaa. Waxaad ku qoran kartaa disk management manage disk management aad ku qoran kartaa disk management marka waad dooran kartaa halkaa create format hard disk kaasaad dooran kartaa markaas marka uu kuu soo dhigi doonaa waa halkan maaragtay markaa kuu soo dhigay or waxaa kaloo samayn karnaa kaas waa haddaad diidanta inaad qortid haddaad doontid waxaad ku dhufan kartaa right click intaa right click ku dhufatid ayaa computer baad ku dhufan kartaa kaasna waa a little bit process ka dheer laakiin ka u dhib yar waa ka disk management. Marka disk management ku dhufatid waxaa kuu furmaya kuwii initiate buu qoranayaa marka waxba initiating cancel marka waxaad arkaysaa kuwan waa kuwii aan creatinay 1 2 3 baan creatinay. Hadda waxaan doon kuwan waa physical waa wax la taaban karo weeyaan oo ah laakiin waxaan createynaa ku ah virtual ah. Markaan createyno halka waxaa noo yaala sad arkaysan 1 2 3 3 baa noo yaala wax ka badan ma yaalaan. Marka waxaan samayn doonaa waxaan ku dhufan doonaa action ayaan ku dhufan doonaa. Markaan action idhaa waxaan odhan doonaa create taad arkaysaan create virtual disk. Marka wuxuu odhan doonaa location aad ku save garaysid doono meesheed ku save garaynaysaa. Marka waxaan odhan doonaa browse intaan ku dhufto ayaan tegi doonaa waxaan ku save garayn doonaa kan baan ku save garan doonaa C-gayga. Markaan C ku save gareeyo file magac baan u bixin doonaa. Hadda matalan computerkeena waxa weeye client 1 waxaan u bixin doonaa client 1 waxaan u bixin doonaa ku qoras client 1 waxaan u bixin doonaa h no v hd ayaan u bixin doonaa. Markaan u bixiyo marka waxaan odhan doonaa save markaan save idhaa halkaasuu noo soo dhigay. Markuu halkaa noo soo dhigay waxaynu weydiin doonaa size-kaad doonaysid what size baad doonaysaa. Marka halkan wuxuuna siiyey MB buuna siiyey wuxuuna siiyey gigabyte wuxuuna siiyey terabyte buuna siiyey. Marka gigabyte baan dooran doonaa markaas size-kaad doonaysid inaad dooran. Marka matalan size-ka waxaan dooran doonaa 20 baan dooran doonaa. Marka labada nooc baa jira oo ah virtual disk iyo waxaa jira virtual hard disk baa jira oo X ah. Haddii uu numberku ka wan yahay 2 gigabyte uu ka wan yahay marka kan bay dhahaa hadduu keliya waa kaas laakiin marka inagu waxaan ku daynaynaa numberka inuu ka wan yahay kaasaan ku dayn doonaa. Marka waxaan odhan doonaa halka waxaa la yidhi waxa ku qoran fix baa ku qoran laakiin waxaan dayno doonaa dynamic baa ka fiican oo extended ah. Markaan dynamic doorto dynamic baad dooran marka waxaan odhan doonaa markaan okay dhaa
halkan saad arkaysaan 3 waxaan ku haysanaa 1 2 3 aan ku haysanaa markaan okay la 4 baa noogu bini doontaa as you can see halkan waxaad arki doontaa 4 buu noqon doonaa waa kaas marka hadda waa soo galay as you can see markii hore 3 buu ahaa ma garatay marka kan baan doonaynaa marka inaan samayno marka waxaad oranaysaa initiate marka right click baad ku dhufan doontaa marka right click siisid waxaad oran doontaa initiate disk marka initiate marka waxaad oranaysaa okay ku dhuf marka labadan qaybood buu ku siiyey marka I'll keep it the bottom baan ku deysan doonaa I'll keep it the waxaan ku deysan doonaa the bottom baan ku deysan doonaa marka waxaad oran doontaa okay dheh marka okay la marka initiate right now halkaasaan sameeyey marka haddii aan eego filekayga eego oon halkan tago haddaan ku tuso aan halkan tago ku arki mayno because I have to initiate let me show it to you haddaan aan ku dhufto aan tago this is this is my C drive oh here as you can see it here already you can see the one I created marka waxaad samayn karaa I can deattach waan ka saari karaa hadda halkan waad ku arkaysaan haddaan kan click siiyo right click waxaan odhan doonaa deattach markaan ka saaro click waan siin and then it left because you cannot see anything now here oo kuma arkaysaan haddaan inaan soo celiyo doonayo oo inaan keeno aan soo celiyo doonayo haddana waxaan ku dhufan doonaa action intaan action ku dhufto ayaa odhan doonaa waxaan odhan doonaa attach intaan idhaa marka wuxuu odhan doonaa locationkii ka dooro odhan doonaa marka intaan ka ku dhufto browser ayaan tegi doonaa halku yaal oo kana oo kaas marka waxaan odhan doonaa open and then waxaan odhan doonaa okay and then it will come back here sidaasay u shaqaysaa haddaan doonayno inaan initiatino let's go initiate it marka waan initiatinay marka right click baad ku dhufan halkan waxaan odhan doontaa new symbol value and then waxaan odhan doontaa next and then this is the 20 gigabit that we aan doorno ku dayn doonaa next marka waxay idhaaheen assign the following drive letter u dooro idhaaheen marka letterada defaults weeyaan marka baan iska dayn doonaa haddaad doonaysid kuwa kalaad dooran kartaa let's go keep it the now marka waxaan odhan doontaa next waxay ku weydiiyeen marka waxaan odhan doonaa next aan odhan doonaa marka next idhaa as a file system is waxa weeye nf waa nf wuxuu taagaya ntfs oo ah new technology file system ah taagan oo hadda kan cusub weeyaan marka magaca u bixi way idhaaheen magac baad u bixin kartaa dad doonaysid marka hadaad doontid sidaasaa ku dayn kartaa so let's go keep it that way and then waxaan odhan doonaa next marka next da and then marka idhaha finish and then it initiates it's as you can see when waxaan haysanaa 19 and already they added on the hour if I go to my Z drive if I go to here I'll show it to you before it was muxuu ahaa un C buu ahaa laakiin hadda they added E or here I can save it here this one is a virtual oo ah maad garanaysaa it's not physical kanaad arkaysa C is a physical wax jooga weeyaan oo inagu ku darna weeyaan but this one is a virtual weeyaan isaga inta badan haddii aad a lot of C drive haysatid oo physical ah waxa fiican sometimes inaad haysatid virtual ah oo virtual ah marka haddaad doonaysid waxaad oran kartaa hadduu ku dhibaya inaad halkan ku aragtid you can say the attach waad ka saari kartaa waan ka saaray hadda ma jiro ma garatay ma jiro sofa saad arkaysaa halka ma jiro halkanaan eego halkan lafteeda as you can see you cannot see hadda maad arkaysaa kuma jiro halkan amblaariyo halkanna kuma jiro you can see halkan markii hore wuu yaalay laakiin hadda ma yaalo war waxaan samayn doonaa waan ku soo celin doonaa so waxaad odhan doontaa action you click action and then you say attach and waxaad odhan doontaa meeshuu yaallo ayaad dooran doontaa oo waa halka inoo yaalla hadda waxaan odhan doonaa open hadda waxaan odhan doonaa okay marka okayda markaan eegno waa ka u soo laabtay hadda arkaa let me go back to the file again and let me see it. Okay waa ka u soo laabtay waa ka halkaa yaala hadda cashirkeen caawa intaasa ku dayn doonaa kan baan hadda ka shaqeynay saad arkaysaan
screenka inkastoo aan weyneyn een, screenka maanan weyneyn in general one more time aan ku celiyo mar labaad. Ah, ah. Markaad always creatinaysid, you go to action, you click action, you click action, and you say create, and then you create it. Halkaasaad magacood bixin doontaa, kan baa ku dayn, size-kaad dooran doontaa aad doonaysid, gigabyte, and then dynamic baad ka dhigi, and okay baad odhan doontaa. And then already we created, but haddaan doonay inaan aan ka dhaqa hadda already it's here, halkan buu yaalaa. Haddaan diidan inaan arko, you you come here and you say it detach. Haddaad diidanta inaad macnaa doonaysa inaad deletesid, you click here and then you can delete it. Haddaad doonaysid. You go to here and you say detach, and then it's as you can see there is nothing now. Oo kuma arkaysid hadda. Haddaan tago halkan faylkana tago, halkanna kuma arkaysid. Or there's nothing ma yaalo. What I can do if haddaan inaan soo celi doonayo, you go again here, you go action, you say attach, and then you choose meesha noo yaalay markaan creatinay oo halkan inoo yaala wakaas, and then I say okay, open, and then I say okay, and then you'll come back here, and this you can see. And also in the file also, it's in the file. In the file, it's here as you can see. You can save it whenever you. This is a virtual disk. Inshallah wixii common ah ee ku saabsan cashirkan aan halkan ka qaadanay comment ku qor haddii alla idmo. Jazaakum allahu khairan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.